Nigeria waa dawladda galbeedka Afrika. Muslimiinta ku nool halkaasi waxa ay ka kooban yihiin 85 milyan oo muslimiin ah. Intooda badan waxa ay raacsan yihiin madhabka Sunniga, kuma hadlaan luqadda Carabiga. Islaamku waxa uu soo galay ama uu soo gaaray qarnigii 9aad ee miilaadiga. Dadka intooda badan waxa ay muujiyaan astaanta Islaamka iyagoo ilaalinaya sunnada nabigeena sallallahu alayhi wasallam. Maanta waxa lagu tiriyaa Islaamka in uu yahay noloshooda qayb kamid ah. Si lamid ah, Islaamka ayaa u ah sharci ka oo noloshoodu haga. Nigeria waa wadan muslima. maalintii uu soo gaaray Islaamka galbeedka Afrika, taariikhyahanada Islaamka waxa ay isku khilaafaan goortii uu soo gaaray dalka Nigeria. waxaase loo badiyaa in uu soo gaaray Islaamka qarnigii 9aad ee miilaadiga. waxa uu ka soo galay galbeedka Saxaraha isagoona u soo maray dad safaray ah kuwa oo kaga yimid dhanka Masar iyo Xijaaz si ay ugu faafto diinta Islaamka guud ahaan Afrika oo dhan, gaar ahaan galbeedka Afrika. dadka in yar ayaa soo galay diinta Islaamka halka dadka kalena ay ku qaadatay sanado badan si ay xaq u fahmaan ilaa laga gaaro qarnigii 11aad. waxaana la ogeysiiyay in ay tahay diinta Islaamka mid ugu sareyso guud ahaan diimaha kale. intii lagu guudi jiray xilligii imbratoriyadii Berno ee uu xukumayay boqor Idris Aluma, waxa ay ahayd kuwa caabuda asnaamta xilligii boqor Idris Aluma. laakiin magaalada waxa ay noqotay xilligaasi wixii ka dambeeyay mid la nool noloshii Islaamka, iyadoona la aasaasay maxkamado Islaami ah. waxaa kaloo la dhisay masaajida waaweyn oo ay muslimiintu ku cibaadaystaan. waxaa kaloo la sameeyay meel ay degaan safarka ka imaanaya magaalada Maka ka oo ujeedkiisu ah xilligaasi faafinta dacwada Islaamka. intaasi kadib waxaa sii kordhayay marba ka dambeysay tirada dadka soo galaya diinta Islaamka. waxa ay noqotay meel ay ka soo baxaan culimada Islaamka kuwa oo caan ku ah fiqiga iyo axaadiista nabiga sallallahu alayhi wasallam. waxa ayna noqotay balad guud ahaan Islaam ah. bilowgii qarnigii 19aad waxaa haystay gumaysihii Ingiriiska dalkaasi Nigeria. Ingiriisku wuxuu galay meel kasta oo kamid ah Nigeria. dadka intooda badan waxa noloshoodu saameyn weyn ku yeelatay gumaystaha Ingiriiska. wuxuu u diiday wax kasta oo astaan diineed ah. waxa kaloo ku faaftay kooxaha faafiya diinta Kirishtaanka iyagoo dadka u bandhigaya qarash lacageed si ay diintooda uga baxaan. dadka intooda badan waxa ay ka sheeganayeen dhibaatooyinka uu kula kacayo dadka, taa oo ay kamid ahayd in dadka la adoonsado, la iibgeeyo ganacsi ahaan, taa oo ay iska kaashanayeen gumaysigii Ingiriiska iyo kuwa kale oo ganacsato ah. ganacsigan ma uusan istaagin ilaa laga gaaro bartamaha qarnigii 20aad ee miilaadiga. adoonsiga noocan oo kale ah waxa uu ka jiray gobolada qaarkood. kadibna soo bixitaankii aqoon-yahanadii reer Nigeria waxa bilaabatay dhaqdhaqaaqyadii xoreynta. waxa uu ujeedkoodu ahaa in ay ka xorowdo gumaystaha Ingiriiska si buuxda Nigeria. laakiin arrinkaasi ayaa noqday mid aan suura gelin. Nigeria ayaa heshay xorriyadeedii 1 Oktoobar sanadkii 1960, laakiin waxa ay noqotay Nigeria federaaliga ahayd. waxa ayna noqotay boqoradii labaad ee Ingiriiska Elizabeth mid ay ku faanto halkaasi maadaama ay weli madaxa ka maamulaan dalkaasi Nigeria. intaasi kadib waxa la aasaasay xukuumad ku meel gaar ah oo ay ka xoog badisay Almaaniyada. waxa ku soo biirtay dhowr shakhsi oo wata diimo kala duwan iyo kooxo kala gidisan. waana midda kaliya ee Nigeria uryaamisay. si lamida waxa ay la noolaayeen dhibaatooyin isa soo taraya, taa oo ah 30 sano oo burbur iyo cabsi ah. afgambiyadii Nigeria halakeeyay sanadkii 1960 waxa dhacay afgambigii ugu horeeyay ee dalkaasi Nigeria. afgambigaasi oo ay hogaaminayeen ciidamadii Izno Ikbo, kuwa oo durbadilay Ahmed Wabilo ka oo ahaa mid kamid ah siyaasiyiinta ugu caansan xilligaasi. sidoo kale waxa uu ahaa mufassir Islaami ah. intaasi kadib dawladdii ayaa kala furfurantay
waxaana lagu dhawaaqay dawlad madax bannaan gobollada waqooyi ee Nigeria. intaa kadib waxaa qarxay dagaal sokeeye oo aad u kulul oo ay soo fargeliyeen dawlado badan oo caalamka ah. wuxuu isku bedelay waddanka goob dagaal oo lagu sifeeyo dawladii ku meel gaarka ahayd. arrinkaasi kadib waxaa hoos u dhac weyn ku yimid dhaqaalaha iyo noloshii reer Nigeria. intaasi kadib waxaa si tartiib u soo laabanayay nabadgelyadii waddanka iyo in durbaba la baaro bal inuu waddanka leeyahay goobo shidaalka laga soo saaro. waxaana cabsi weyn ay ka qabeen ciidamada Nigeriaanka ah afgambi kale oo ku yimaado waddanka. sanadii 1999 waxaa la iclaamiyay in loo jeesto dhanka dimuqraadiyadda waxaana la doortay madaxweyne cusub si loo hakiyo dhibaatooyinka faraha badan ee duleeyay reer Nigeria. waxaana soo laabtay xasiloonidii waddanka kadib muddo dheer ay ku jireen colaad iyo dhiigdaadin. islaamkii Nigeria si kastaba ha ahaatee dhibaatooyinkii uu soo maray waddanka Nigeria, muslimiinta Nigeria waxa ay ilaashadeen astaantii islaamka si buuxda. waxa ayna sugeen imaatinkoodii goobaha cibaadada. bilowgii 90-meeyadii hay'adihii islaamka waxa ay ka ciyaareen door muhiim ah si ay dadka ugu mintidaan diintooda islaamka. sanadkii 1990kii islaamka ayaa si buuxda ugu faafay dalkaasi Nigeria iyadoo ay noloshooda ka mid noqotay noloshii islaamka heer ay xirayeen goobaha ganacsiga xilliyada si aysan salaada uga tagin mid ka mida muslimiinta Nigeria. waxaa faaftay iskuulada sunniga oo dadka lagu barayay shariicada islaamka. markii la furay garoomadii diyaaradeed ee Nigeria dadka waxa ay bilaabeen in ay u baxaan magaalada Makka si ay u soo xajiyaan. dhibaatada kaliya ay haysatay reer Nigeria ayaa ahayd dhanka luuqadahooda kuwa oo ahaa laba luuqadood oo la kala oran jiray Jurba iyo Hausa. laakiin raggii wax ku soo bartay dalka Masar iyo Suuriya ayaa lahjadahoodii ku soo daray luuqadda Carabiga goorta ay bixinayaan casharada diiniga. taa ayaa kaliftay in si tartiib u soo gasho luuqadda Carabiga si Quraanka Kariimka ah si buuxda ay u akhriyaan. faafitaankii ballaarnaa ee caqiidada islaamka ayaa saameeyay lahjadihii looga hadli jiray dalkaasi Nigeria. qoraal iyo akhrinba waxaa la sameeyay looxaan lagu qorayo luuqadda Carabiga si dadku ay uga hadlaan si caadi luuqadda Carabiga. waana arinka kaliya ee u fududeeyay in ay si buuxda u haystaan diintooda islaamka. waxaa kaloo Nigeria laga helaa ururo islaamiya oo aan badnayn kuwa oo ay aasaaseen rag culimaa u diin ah kuwa Carbeed iyo qaar kale oo Afrikaan ah kuwa oo ujeedadoodu ahaa in ay Nigeria ka taageeraan maadiga iyo diintuba. inta badan dadka reer Nigeria waa kuwa raacsan madhabka ahlus sunna wal jamaa wallow ay jiraan qaar yar oo haysta madhabka Shiicada. waxa ay ku nool yihiin muslimiinta Nigeria arimo aan la barbardhigi karin wixii la soo maray. wax kasto ay ahaataba waxa ay noqdeen kuwa ku faana diintooda islaamka waqti waliba iyo xaalad waliba.